بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada janaalkeena Nampic Digital Marketing Solutions maanta waxaan qaadan doonaa cashir kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo ka hadlayo sideen u samaysan karnaa email business account oo email oo business ah sideen u samaysan karnaa instead aan isticmaal lahayn midka oo caadiga dadka oo free ah oo dadka ay isticmaalaan oo ah @gmail.com sideen u samaysan karnaa oo ah domain name keena inaan u adeegsano muxuu ahaa email oo domain name keena raacsan yahay tusaale ahaan hadda anaga website keena waxa waaye waa nampic.com waaye sideen u samaysan karnaa marka info@nampic.com support@nampic.com sales@nampic.com team@nampic.com meeshaan ka isticmaal lahayn midka caadiga ahaa kadibna waxaan ku baran doonaa sidee markaas aan samaysano business email account markaan samaysano aan ugu link gareyn karnaa gmail keena saa ognahay gmailka wuxuu offer gareeyaa free version oo aad u isticmaali karto wax lacag aadan bixinaynin laakiin waxaa jirta website kale asaga la xiriiro oo uu leeyahay oo qaab lacag ah aad u bixin karto professional emailskaas oo shirkadaha companies-ka ay isticmaalaan oo website-kooda ay ugu isticmaalayaan domain name-kooda oo website-kooda ah ay email-kooda ugu isticmaalayaan marka email address oo kaleento waxaa u baahan tahay inaad heshid domain name inaad heshid email oo domain name-kaaga raacsan yahay inaad heshid ay aad muhiim ah marka shirkadda aad kasoo gadanayso website-kaaga markaad soo iibsanayso website-kaaga marka u kooban shirkad aad tahay waxaa u baahan tahay website-kaaga wuxuu u baahan yahay shirkadaada waxaad samaysanaysaa website adiga ku khaas ah oo sida hadda anaga keeno kaleento nampic.com oo kaleento waad soo iibsanaysaa waxaad kale u baahan tahay web hosting u baahan tahay oo email-kaaga waxyaabaha ku dhex jiro waxayna ka bacdi marka shirkadahaas marka waxay bixiyaan serviceyo fara badan sida unlimited emails oo kaleento inaad ku host gareysan kartid marka insha Allah si step by step u qaadan doonaa si waqti badan oo noogu dhumin anaga hadda shirkadda aan domain name ka soo gadanay waxa la yiraahdaa hog host ya la yiraahdaa waxay bixiyeen linkigeeda waxaan qaybta description ka hoose idin dhigaynaa aydan kasoo iibsanay domain name waad ka gadan kartaa sidoo kale hosting na way bixisaa hosting wuxuu ka bilaabataa bilbil hadda u bixinaysa $7.99 laakiin haddii aad sanad camal aad u gadanaysid free waxaa raacsan domain name oo free ah oo lacag la-aan ah raacsan domain name-ka oo sanadka ah $12 camal ay gadaan marka domain name oo free ah raacsan waxyaabo badanna waa uu leeyahay unlimited inta rabta domain ah ayaa ku host gareysan kartaa website aragto domainkeeda aad soo iibsato ayaad ku host gareysan kartaa waxyaabo fara badan ayay leedahay sidoo kale WordPress-ka one click ayaad ku install gareysan kartaa website dhammaystiran marka haddii aad channelkeena ku cusubtahay insha Allah subscribe saar haddaa videogan ka heshay like saar videoyaashan iyo videoyaal kaleentaba waan soo gelin doonaa oo lagu baran doono website-yada sida loo sameeyo digital marketing email marketing waxaasoo dhan aad ku baran doonto insha Allah markaasi step by step aan u baran doonaa haddan si waqti u noogu dhumin toos aan u galno shaqadii aan u bilaawno marka step koowaad waxaan sameynaynaa business email account aan sameynaynaa waxaan ka sameyn karnaa si banaal website-kan la yiraahdo oo ay markii aad oo ah meesha aad ka manage gareynaysid domain name-kaaga oo ay ku siin doonto shirkadda aad ka gadatay web hosting iyo domainka aad ka gadatay ayaa ku siin doonto waana meesha website-kaaga oo dhan aad ka manage gareynaysid daatadiisa iyo waxaasoo dhan qaybta emailska markaa imaano waxaan ku dhufanaynaa email account aan ku dhufanaynaa markaan ku dhufano hadda kan oo kaleenta ayaan sameynay info@nampic.com oo kale aan sameynay waxaan sameynay support@nampic.com aan sameynay inta aad rabta ayaad samaysan kartaa unlimited email account aad samaysan kartaa wuxuuna ka anfici doonaa markaad tahay shirkad ganacsi weyn oo kale ama e-commerce ama shirkad weyn aad tahay oo kaleento emailada waxaa u samayn kartaa shaqaalahaada oo kale sida qaybta sales.com-ka qaybta HR
domain namekaaga .com oo kaleento waxaad u samayn kartaa teamka groupka waxyaabahaas oo dhan magacaagaad ku samaysan kartaa hadda rabta ad meesha gmail uu ahaa ad your domain name ay noqonaysaa .com gradaan leenahay marka qaybtan waxaan gelinaynaa usernameka waxa rabtad ka dhigin kartaa hadhow wax raacayo waxa waaye waa at nambic.com raacayo marka usernameka hadda tusaale waxaan ka dhigaynaa team@nambic.com domain namekeena uu raacsan yahay password aan samaysanaynaa okay qaybtan hoos imaaw meeshaan 250 meesha ka taa waxaa ka dhigaysaa 1024 oo ah 1 GB u dhiganto hadarta unlimited ka dhigi kartaa saa jecesha aday kugu xiran tahay grade aad leedahay sida u jeedaan team@nambic.com waa uu inoo samaystay business email account keeni waa uu inoo samaystay team@nambic.com oo raacsan meeshii @gmail raacsan lahaa waxa raacsan domain name keeni raacsan okay aan galna hadarat inta waad ka dhex isticmaali kartaa laakiin cashirkan waxaan ku qaadan doonaa sida kadib meeshaan imaanaysaad ku dhufanaysaa si aad website ku raacsan yahay waxaan dhan khidmada ay raacsan tahay domain namekaaga ay ku siisay shirkadda halkaan hadarat kala socon kartaa business email account kaaga laakiin waxaan rabnaa inaan ku link gareyn aan ku xirno gmailka aan ku xirno anagoo isticmaalayna gmail haddana waxaan isticmaalaynaa domain namekeena aan isticmaalaynaa arkaysid ba email aan nala soo diray oo configuration ah si aan haddaan rabno inaan gmailka ku rakibno aan ugu rakibno midaan haddii website-kaaga uu secure yahay oo SL certificate-ka yahay kanaad u isticmaalaysa hadduusan website-kaaga secure ahayn haddaba waa maxay secure SL certificate secure certificate waxaa waaye waxa website-kaaga caddaynayo in uu yahay security inuu leeyahay sida hadda kan oo kaleento website-kan hadda security uu leeyahay this site is information is secure website-kaaga hadduusan SL certificate uusan ku download garaysnayn macnaheeda waxa waa hadhow dadka markay soo galaan message soo dhacayo leeyahay website-kan is not secure ma aha hadda laakiin waa secure waaye laftirkeeda wuxuu la socdaa shirkadda aad domain nameka iyo web hosting aad kasoo gadanayso ayaa SS certificate ku raacinayso annaga maadaama marka uu kan inoo leeyahay toos shaqadeenaan u bilaabanaynaa marka okay hadda waxaan dul imaaday waxaad dul imaanaysaa qaybta gmailkaaga caadiga imaanaysaa emailkaaga caadiga emailada caadiga aad u isticmaasho kadib setting aad ku dhufanaysaa kadib see all setting aad leedahay kadib waxaa ka dooranaysaa account and import yaa ka dooranaysaa kadib halkan aad taabanaysaa aad ku dhufanaysaa emailka aan soo samaysana halkan la gelinaa marka wuxuu ahaa team@nambic.com uu ahaa next yaan leenahay kadib next yaan leenahay inta marka waxaad gelinaysaa emailkii iyo waxaad gelinaysaa passwordkii iyo waxaas oo dhan aad buuxinaysaa saa u jeedaan waa buuxinay username-kan gelinay password-kan gelinay kadibna inta waxaad ka dooranaysaa 990 ka dooranay saddexda horena calaamada saaraysaa edit account leedahay kadib next yaa leedahay kadib meeshaan waxaad ku qoraysaa magaca ay shirkadaada ay tahay Nambic Digital Marketing aniga magaca shirkadeena waa taas sida arkaysaan hadayr waxaan gelinay 995 configuration kuma sameeyna incoming-kii message-yadii baxayna inta la gelinayaa marka saa ujeedid waa kaasa waan wada buuxinay waan gelinay kadib edit account leena kadib step-ka hor markaan sameeynay wuxuu noo soo diray email-kii configuration-ka ahaa code-kana qaadanayna verify leena marka kadib verify leenahay sidaas ayuuna wax walba inoogu sameysmeen hadda sidaan wax walba okay waayo okay sida arkaysid
waa kaasaa waxaad dooranaysaa midka arabti inaad dirtid team@nambic